السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalka waxaad ku iibsan kartaa sariir laakiinse hurdo kuma iibsan kartid. maalka waxaad kaloo ku iibsan kartaa saacad laakiinse waqtiga kuma iibsan kartid. maalka waxaad kaloo ku iibsan kartaa daawo laakiinse caafimaad kuma iibsan kartid. gurigu waa dumar ee ma ahan dhagaxaan la isku aadiyey. dumarkuna waa iftiinka guriga ee ma ahan alaab guriga dhex taallo. iftiinka gurigana haddii uu mar damo waxaa hal mar madoobaanaya wax walba oo gurigaas dhex yaalay. layaab ma lahan dumarka ayagoo qaawan inay wareegaan wadooyinka amaba ku labistaan dhar cariiri ku ah, laakiinse waxaa layaab guryaha ay ka soo baxayaan dumarkaas ragga jooga ee la nool. kufid walba macnaheedu ma ahan in uu waqtigaaga dhammaaday. ilmaha yarba goortii ay socod baranayaan marar badan ayay kufaan ismana dhiibaan. afkaaga ku mashquuli cunno iyo badar cunow inta aad ku mashquulin lahayd maxaa la dhahay iyo maxaa la yidhi, sababtoo ah miisaankaada ayaa ku siyaadaya, dembina laguma qorayo. run buu sheegay qofkii dhahay ha u murugan carruurta haddii loo garaaco waxbarasho. garaaciddu way ka caafimaadayaan waxaana u haraya cilmiga iyo edabta. garaaciddu way anfacaysaa cilmigana kor ayuu u qaadaa. haddayna cabsi jiri lahayn waxba ma aqriyeen waxbana ma qoreen. hadduusan macalinka ahaan lahaynna dadka oo dhan waxay ahaan lahaayeen sida xoolaha oo kale, cilmi la'aan iyo edab la'aan.